laakiin aniga waxa waaye wixii aan ka qaadan karo waa inaan ka qaataa suuqaan faraha ka qaada. Targetkayga guud halkaas uu ahaa, halkaas uu ahaa, maadaama saaka trade-ka kale aan qaatay oo halkan ka qaatay marka oo NY Open oo meel fiican ugu xirantay kadib kanalkan kale ayaa hoos iga saaray stop loss-ka ugu dhacay wuxuu ahaa 32 bip. haddana kadib trade-ka kale markuu soo laabto waxaan dhahay trade kale haddii intaan wax duubay oo trade-kan chance uu siiyo waan qaadan doonaa. marka afartii ka dhal markaan ka helay kadib trade-ka waa qaatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. kusoo dhawaada channelka Boga Forex. maanta waxaan rabaa sida caadi ahayd inaad trade aan qaato oo trade-ka halkaas uu maraya inaad trade ka qaato oo ah long position kadibna aan aragno trade-ku wuxuu sameeyey iyo meeshuu aaday haduu ilaahay idmo. suuqan waxyaalaha inta marka haddii aan si calaamad salaxan suuqan horta wuxuu ahaa suuq hoos loo soo daadiyay saaka markay furantay London waxay ku furantay zoonkan London ku furantay kadib waxaa dhacday in suuqii si xawli loo soo daadiyo calaamada ikada waxay in suuqii si xawli loo soo daadiyo maadaama Asian high uu ahaa Asian high halkaas ahayd London marka waxay qaaday Asian low qaaday kadib waxaan ka rabnay inay ku laabato zoonkeeda ma noqon laakiin waxay samaysay new low samaysatay lowgii meeshii shalay oo ay ka furantay suuqan ayuu hadda ku laabtay oo shalay meeshii London ku furantay ayay soo taabatay kadib hoosteeda sii aaday. marka muhiimada aan ka rabno waxaa waaye haddii trade-ka halkaa ka qaadano wuxuu noqon karaa trade-kan ilaa zoonkan inaan hayno ugu yaraan haddii ilaa zoonkaas uu gaaraan okay kadib stop loss-kiisa wuxuu noqon karaa zoonkaasuu noqon karaa calaamadaha iska tirtiro stop loss zoonkaasuu noqon karaa. marka trade halkaas uu maraya rabo trade inaan ka qaato kadibna aan fiiriyo suuqu suu dhaqaaqi doono iyo wuxuu samayn doono hadduu ilaahay idmo. usbuucan trade-kii wuu yaraa hal trade aan qaatay kaasna waa dul tegi doonaa xaaladiisii siduu noqday iyo wax iska bedelay kadib trade-kan horta trade-kan open position aan dhaho trade-ka inuu iga tagaan ka baqaa intaan iska daba wareegaya trade-ka inuu iga tagaan ka baqaa stop loss-kii 34 waaye 34 maadaama aan ku geli rabo marka stop loss 0.5 inaan isticmaalay noqonaya trade 0.5 buy okay trade halkaas trade-ka ugu jira hadduu ilaahay idmo waxaan fiirin doonaa meesha nala aado iyo sida noola dhaqmo kaas dib aan ka fiirin doonaa hadduu ilaahay idmo. aan fiirino marka trade-kaas okay marka waxa laga yaabaa suuqa markaan saan u qaadanay trade-kii halkaas uu marayo suuqa ka furnay trade suuqa maadaama ka furnay waxa laga yaabaa inuu nala soo laabto oo xoogaa nala meerayso kadib suuqa kor aado taasoo macquul waxaa macquul ah inuu kor u socdo meel fiican la geeyo labada macquul waaye. marka waxaan ka rabnaa anaka in trade-keena jihada aan u jihaynay inuu nala aado tanoo muhiimsan taas ah trade-ka jihada aan u dirnay inuu nala aado taasaa noo qorshaysan taasaa qorshaha noogu wanaagsan kaas waaye. marka stop loss-kan waxaan keensan doonaa zoonkan weegan hoostiisa markaasna waxaa waaye 1 hour ka hore markaa fiirisid 1 hour u dambeeyay hoostiisa ayaa halka stop loss aan rabo inaad dhigto zoonkaas aan rabo inaad dhigto 34 pip waaye. marka haddii akoonkaada aad fiirisid tusaale ahaan my FX book aan rabo inaan galo akoonkaada inaad fiirisaa laga rabaa si aad u ogaatid trade-ka aad qaadanaysid in oo loss badan aad ku qaadanaysid iyo in kale halkaasna fiirisid tusaale ahaan haddii aad 1% aad iskaraysid GBP waaye marka aad 1% aad iskaraysid akoon size-kayga hadduu yahay 10,000 tusaale ahaan oo aan rabo 1% inaan iskareeyo 35 bip 34 bip stop loss-kaygu yahay hal trade aan qaadanayo meeqaan ku geli karaa waa 0.41 1.2 aan dhihi karnaa 1.2 sidaas waa 1.2 marka 1.2 aan iskareeyay si aan u helo maxaa la dhahay 2.4 si aan u helo ugu yaraan inaan u helo trade-ka marka waa kana 1 hour waa kana 15 minutes markaad tagtid tusaale ahaan hadda 15 minutes-kii halkan trade-kan ka qaadanayaan joognaa 15 minutes markaan ku tuso tusaale ahaan 15 minutes waa kana London Open waxay ahayd qaybtaas kore ahayd London Open qaybtaas kore ahayd kadib trade-ku soo daatay halkaan uu imaaday newski NFP aa jiray newski waxay dhaqaajiyay newski waa kana wuxuu kusoo baxay positive
oo maxaa lahay meesha laga filayo wax ka yar uu soo baxay okay it's nice kan kalena waxa meesha laga filayo wax ka yar uu soo baxay asana kaas wax yar negative uu soo baxay marka insha Allah kulay maadaama lacagta GBP iyo GPY markaan ku trade gareynayno lacagta dollarka markii news ka soo baxo way saameysaa taas in badan waa aragnay marka maadaama aragno waxaan sameyn doonaa stop losska halkan horta aan dhigano 1 hour ku lowgiisa aan dhigno stop loss halkaas markaan dhigno wuxuu noqon karaa 34 pip waxa waaye marka 191 London Open markaan aan target gareeyo tusaale ahaan London aan target gareeyo maxaa dhici karo waxaa laga yaabaa 1 inaan helo 1 to 3 marka 1 to 2 halkuu noqon karaa 1 to 2 zonkaas laga yaabaa inuu noqdo 191 192 843 TB waxaan geysan doonaa 192 843 halkaas markuu imaado waan isku dayi doonaa inaan ka wada baxo hadduu Ilaahay idmo laakiin hadda waxaan sugi doonaa wax yar meesha London Open inaan target gareeyaan rabaa targetka inaan ka dhigto London Open targetkayga guud inaan ka dhigtaan rabaa London Open tusaale ahaan halkaas inay ahaato targetka guud halkaas inay ahaato qaybtan sare marka laakiin zonkaas soo gaara waa iska manage gareyn doonaa marka insha Allah waxaan sameyn doonaa tradekii wixii trade update ah iyo tradeka suu xaaladdiisa noqotay dib aan kasoo sheegi doonaa hadduu Ilaahay idmo waan isla socon doonaa 15 minutes hadda oo 3 daqiiqo ka harsan 3 daqiiqana weli suuqa waa nala meereysanaa mar kor iyo mar hoos u socdaa wax hadda ma ujeedno oo dhib ah ma aragno marka waxaan sugi doonaa sida xaaladda ay noqoto TP marka trade waa qaadanay waxaan sugnaba waa natiijadii marka aan update gareeyo aan ku qorto tradekii report aan ka sameeyo copy link aan sameeyo marka insha Allah isku soo laaban doonaa bismillah markii anaa soo laabtay waxaan soo laabtay waxay ahayd tradekii horta waxaan ku qaatay halkaan ahayd marka hal tradekaan ka qaatay 5 minutes ii joogay markaas laakiin qaladkaan ku sameeyay waxay ahayd 5 minutes kadib halkaan uu ku xirmay 15 minutes kale markuu furmay si xawli uu ku aaday lowgii aan dhigtay hoostiisa stop losska waa la qaaday waa kana ujeedin meesha aan kasoo galayna halkaas waay halkaan halka oo stop loss iga dhaca waay maaha keliya suuqan maalinta aan faa'iido inaan soo sawiro aan soo dhigo maalinta khasaaran kulley inaan soo dhigo waxa waaye lama huraan waay maanta taariikhdu waxa waaye lacagta GBG waa aan qaatay waatana lacagtan halkaan ka qaatay waxay ahayd 192 192 halkaasaan ka qaatay suuqa waxay kor u socday haddana kadib uu nagu soo laabtay week kana kor u qaaday week buu qaaday lacagtan 70% waxaan aaminsanahay inay meeshaan ay gaari doonto weekan hadda naga saaray kadib haddii zonkan mar kale uu kusoo xirmo 15 minute candle aan arko oo zonkan ku xirmo markaas waxaa laga yaabaa inaan lacagtii aan mar kale aan dib u fiiriyo walow hadda maanta waxaan u targalay 1.2 inaan khasaariyo 1.2 waa khasaariyo 1.2 akoonkayga wuxuu ka yahay 120 marka waxaa laga yaabaa 130 maadaama ay noqotay in oo splitkii iyo waxyaalihii extra igu darsameen bar kasta ku xisaabtan markaas 100 ku xisaabtid waxaa laga yaabaa inuu kaa saaro 110 ama 105 ama 106 inuu wax ku darsado waayo marka aniga waxaan ku tushanay 1 to 2 marka waxay noqotay 1.3% inaan khasaaro 1.3% akoonkii 10 kun wuxuu ka yahay $130 taasna waxa waaye part of the game qofka qasab ma ahan in maalin kasta trade ku sameeyo tradekay shuruudaha aan ka reebay waa ka helay meesha uu ka furmay London halkaas ahayd halkaan oo ahaa halka London suuq uu ka furmay kadib suuqii hoosa loo waday New York aan dhahe New York halkaas uu ka furmay suuq kadib hoosa loo waday weegaas soo qaatay kadib hadda wuxuu rabaa inuu aniga naga saaro kadib suuq kor soo aado marka waxaan sugi doonaa markaa trade qaato kadib waxaan sugi doonaa ugu yaraan 30 daqiiqo 15 minutes ka hadda meesha ku dhamaanaya arko 15 kale hadduu furmo oo zonkan ku dhamaado 15 kale oo zonkan ku xirmo kadib waa laga yaabaa haddan trade kale inaan raadiyo anoo raadinayo targetkaas halkaas isbuucan waxay ahayd isbuuc oo aan qaatay 2 loss akoonkii phase 2gii aan waday challenge-ga waxaan ku jiraa hadda 2% meel ah iyo wax yar 2.4 ama 2.6 meelahaasaan ku jiraa
laba trade aan qaatay markaan history aan dib u fiiriyo halkan last week ama last month aan geeyo labadaas trade kaliya aan qaatay kolkan waxaan furtay 24 bisha oo April ay ahayd trade-ka koowaad aan qaatana waxay ahayd 29 oo jidin kaas waxaan ku qaadanay 1.5 aan riskaraynay maadaama phase 2 aan haysanay waxaan rabnay 1.5 inaan riskarayno si aan u helno 3% inaan u helno si maalinta kale haddii aan ka gudubno hawsha aan hore u socoto taas ma shaqeynin maantana waas ilaalinay still meesha 1.5 ahayd waxaan ka dhignay 1.3 1.2 aan ka dhigtay laakiin wuxuu ii qaatay 1.3 still hadduu oo halaas aan ku jiro daily losska uma dhowi daily losskayga waa 500 daily losskayga 500 waay markaad waxaan haystaa 130 still wax badan ay dhiman mana rabo inaan phase 2gan aan saas iga halaabo ugu yaraan 4 trade 5 trade marka oo loss aan qaato waxaan hubaa inaan soo celin doono sababtoo ah waxaa laga rabaa inaan khasaariyo 10,000 maxaa la dhahay $1,000 inaan khasaariyo si aan ama inaan helo 500 si aan usoo gudbiyo okay $1,000 si aan u helo hadda waxaan ku jiraa $300 ku jiraa okay $300 ku jiraa 300 markii maxaa laga rabaa waa 3% aan minus ku jiraa waxaa ii hasan keliya 5% meesha laga rabay 5 plus 3 waxaa ii hasan 8% sidoo qof hadda qaatay phase 1 qaatay camal yani aan isku halanahay 8% gaas ay hasan 8% waxa laga yaabaa laba trade inaan ku helo hal trade oo 3% ah iyo hal trade oo 5% ah taas waan qorshaha aan rabo inaan kusoo gudbiyo phase 2gan qorshaha rabo inaan kusoo gudbiyo phase 1kii waa soo gudbiyey waa soo diyaariyey kulli qorshihiisana waa arki doontiin hadduu ilaahay idmo marka trade-kii kulli halkaas iga saaray hadda halkaas u maraa marka hadday noqoto in trade-kan uu halkan ku xirmo oo 15 minute-kan 15 kalena halkan meelahan kanal kale oo halkan ku furmo oo aan arko waxaa laga yaabaa inaan haddana aan 0.5 ugu yaraan ama 0.6 kale inaan khasaariyo suuqa dib ugu soo laabto maadaama maalintii qorsheyga waxa uu badnaan laba trade inaan qaato marka waxaa ujeedin 29 hal trade inaan qaatay oo labada bisha maanta hal trade aan qaatay oo 24 kan account liisoo furay intaas trade qaadi sidii inay yar tahay halkaas ay ka muuqataa waa kana kan trade-ka labaad waaye trade-ka labaad hadda aan qaatay 1% 1.3 meelahaas waa riskigayga marka waxaan ka rabaa haduu ilaahay in zoonkaasi ugu soo laabto iyo hadda stores ku dhacaan waa kana marka kana sugi doonaa wuxuu sameeyey oo meesha ku dhamaaday waxaan soo laabtay wax kale ma ahayn trade-kii hadda stop loss laga saaray kaas u ahaa kadib halkaas trade ka qaadanay trade-ka hadda si fiican ku socda ugu yaraan waxaan noo wadaa wax ku dhawaad 1% ku dhawaad noo wadaa marka insha Allah waxaan inta suuq xirmin ka hor waxaan isku day doonaa hal saal la gaarin suuq inta xirmin ka hor inaan trade-kan aan meel cidla ugu baxno faa'iido aan ka qaadano ama maxaa lahay aan keensano intriga aan keensano hadda maadaama uu noo wada faa'iido fiican noo wada marka insha Allah kulli sidaas way kulli kan waxir stop loss kan waxir waa soo sikin doona halkaan keeni doona waa sugi doona trade-kan ani London Open ayaan target gareyn rabaa trade-ka hadda aan qaatay way saaray 1.3 aan ku saaray 1.3 percentage ku saaray kan hadda 1.3 ka badan ii wada marka insha Allah waxaan rabaa haduu ilaahay trade-kaas meel fiican uu nageeyo kulli waa sugi doona meeshuna gaaro haddii meelahan uu gaaro ama meelaha uu gaaro kadib 1 to 2 wuxuu ku aadan yahay zonkan uu ku aadan yahay zonkan marka zonkan markuu imaado waxaa laga yaabaa inaan kala xirano marka waa fiirin doonaa hadduu ilaahay zonkan hadduu imaado marka insha Allah wixii trade update ah inta oo suuqa xirmin ka hor aan soo gudbin doonaa maanta jimco waay jimco mubaarak dhammaantiin asxaabta oo YouTube gadaal ka daawanayso marka waa live u duub rabaa wixii akhbaar kulli gadaal aan ka fiirsan doonaa wuxuu imaaday meel fiican 15 kan hadda ilaa wuxuu ujeedaa indecision canal 7 daqiiqo dhiman marka waxaan sugi doonaa 7daas markay dhamaato meesha uu ku dhamaan doono hadda ilaa 38 bi noo gaaray mar 40 bi oo isha saaray marka meelaha markuu soo gaaro waxaa u badan tahay inaan ka qaadan doono 1 to 1 kii horta waa helnay gabi ahaan stop loss waxaan keeni doonaa wixii ka dambeeya intriga keeni doonaa stop loss-ka stop marka intriga keena kadib waxaan sugi doonaa asal entry aan ku qorto meeshan stop loss entry si loo fahmo
SL entry ما شاء الله SL entry aan keenay SL entry markaan keenay waxaan ku keenay 30 bib sababtoo maanta 30 bib uu tagay 31 bib iyo 32 bib wuxuu ahaa stop loss kii 35 bib ahaa 35 bib marka 1 to 1 marka helo badanaan waxaan samaystaa SL-ka waxaan keensadaa entry trade-kan kale ka horeeyo waa kii kan ka horeeyay markaasna arag keeda naga qaaday waa stores naga qaaday kadib waa suginaa hadda trade-kan ma degdegi doono waxaan sugi doonaa ilaa laga gaaray 19 ilaa saacadaas laga gaaray waa sugi doonaa marka waxaa laga yaabaa in suuq si fiican ku xirmo haddii oo weli ma xirmin suuqa markaa fiirin hadda waxaa ka harsan aan fiiriye marka soo dhaca hadda waxaan ujeedaa halkaas waxaa ujeedaa in London ay xirantay halkan ay ku xirantay New York ay furan tahay oo waxyar ay ka dhiman tahay New York ilaa saacadaan ay furan doontaa laakiin badanaa 7 o'clock markii la gaaro kadib trade ay furan waa iska xiraa haddii 7 o'clock markii la gaaro oo faa'iido iyo wado waa iska xiri doonaa haddii oo intriga imaadan uu iga saaran okay is nice taas waxaan ku bedeli karo waa qorshaha ku shaqaysto waayo suuqa marka haddaadan qorshe la imaanin way kugu adkaan doontaa inaad suuqan sii joogtid marka qorshena kaas waay marka waxaan sugaynaa waa natiijada hadduu ilaahayno hadda marka haddaan aragno inuu kor u socdo waa sugaynaa hadduu hoos imaado kulley naga saaran kulley oo intaan imaado naga saaran kulley waa arki doonaa 30 bib waxaan ka saari doonaa lacagta aan qaadanay oo aan faa'iidnay bismillahi rahmaani rahiim waxa waaye marka aan soo laabtay waxaan soo laabtay wax kale ma ahayn maadaama trade-ka aan ku jirnay oo xoogaha oo nala meeraystay in badan oo meelahan joogay stop loss mar hore entry aan keenay trade-ka ilaa hadda wuxuu maraa 40 bib 46 bib usii maraya 1% ka badan waa haystaa maadaama suuqana jimciska tahay oo laakiin waxaan u maleynayaa suuqan inuu korkaas aadi doono ilaa laga xiraay ilaa korkaas inuu gaaro laga yaabo zoonkaas inuu gaaro laakiin aniga waxa waaye wixii aan ka qaadan karo inaan ka qaataa oo suuqan faraha ka qaada targetkii guud halkaas uu ahaa halkaas uu ahaa maadaama saaka trade-ka kale aan qaatay oo halkan ka qaatay marka oo NY open oo meel fiican ugu xirantay kadib kanalkan kale ayaa hoos iga saaray stop loss ugu dhacay wuxuu ahaa 32 bib haddana kadib trade-ka kale markuu soo laabto waxaan dhahay trade kale haddii intaan wax duubay oo trade-kan chance uu siiyo waan qaadan doonaa marka afartii ka dhal markaa ka helay kadib trade-ka waa qaatay masha Allah si fiican ku socdaa taasna waxa waaye qaabka u trade gareeyay waaye masha Allah qof kasta waxaa leeyahay wax baro oo shaqeyso insha Allah qofka u baahan in wax laga caabiyo qaabka trade loo qaadanayo kulley waa nala soo xiriiri karaa telefonkeyga wuxuu yaalaa qaybta description-ka YouTube markaa gashid meesha ka arki kartaa marka insha Allah halkaas rabaa inaan ku joojiyo weegan trade-kii halkaasna ku soo xiro marka insha Allah week report inaan soo sameeyo haddii ilaahay idmo hope inaan wejiga labaad inaan ka gudbiyo usbuucaan aan isku dayay laakiin way shaqayn weysay hadda markaa computer telefonkeyga aan share gareeyo telefonkeyga markaan share gareeyay trade-ka aan qaatay oo kii kale aan qaatay waa kana kii saaka oo doorkaan iga saaray stop loss-kana waa kana $130 oo iga saaray 1% ka ahayd account-keyga marka trade-ka hadda uu la socdaa meel fiican u maraa laakiin maadaama oo wixii aan rabnay aan ka helnay 2% ku dhawaad waa ka haysanaa marka suuqana ay tahay jimco iska tahay oo iska xirma rabo marka waxaan isku day doonaa insha Allah zoonka uu marayo camal inaan fiirino oo halkaas wuxuu maraa hadda 53 bib 53daas bib inaan ku xirno si wada jir si aan u aragno qaabka u xiray iyo meeshaan ku xiray kadib isniinta markaa imaano aan aragno account-kan marka qaybtiisa koowaad haddii isniinta iyo talaadada trade aan helno next week hadduu ilaahay weegan wuxuu ahaa week xoogaa iska adag laba trade aan qaatay laba trade stop loss ku dhaceen trade-kan kan hadda wixii hal trade stop loss ku dhacay iyo wax kale extra haysta waan rabay inaan hayo ilaa waqtigaas laakiin xilligii la gaaray halka saacadan suuqa ka baxay waa la gaaray marka suuqa halkaas rabaa inaan u baxo halka aan rabo suuqa inaan ku xiro inaan calaamad sii saarto oo ay noqoto halkaas inaan ku xiro waa ogahay suuqaas si fiican ku socdaa laakiin ma ogaan karo inuu ugu soo laabanayo kaas waxay ugu caawinaysa male marka waa iska xiray halkaasaan ku xiray halkaas markaan ku xiray account-kayga kulley maanta waxaa kusoo biirtay $40 marka si loo fiiriyo trade-ka koowaad aan qaatay wuxuu ahaa trade-kaas stop loss iga dhacay trade-ka labaad aan qaatayna waa trade-kan hadda oo TV aan ku qaadanay
marka $170 aan ka qaadatay hadduu ilaahay idmo $170 aan ku xiray tradekii hadduu sii socday haddii kale kuley ani taas waxa waaye wax weyn ay xaggay ka tahay ma lahan maadaama ay jimca tahay oo suuqa uu dhammaaday oo suuqa xidmi rabo halkaas raba inaan ku xiro suuqa marka waxaan noo balanahay next week hadduu ilaahay idmo iyo sabti iyo axad hadduu ilaahay idmo waxaan samayn lahayn backtesiga aan samayn jirnay saddexda trade aan qaatay weekan waa kana labadaas trade oo losska aan qaatay halkaas trade oo winka marka insha allah 1 to 2 waa ka qaadan lahaa laakiin suuqa waa xirmay darteeda marka waa maadaama suuqa xirmi rabo xilligan ay tahay xilligii suuqa la xiraay marka ma rabi inaan tradekan aan kusii jiro marka insha allah halkaas raba inaan ku joojiyo